بسم الله ورسامة ديجيتال ميديا إسماعيل ورسامة وايد سلام دمانتي إن قلبتها waxay nu ka sheekaysanayna sidee yaa dhisay horta madaxtooyada Soomaaliya villa Soomaaliya wax yar haddaan dib idiin celiyo wayadii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo ciidamadiisii ay qabteen villa Soomaaliya markii dowladda TFG-du u soo guulay Muqdisho dagaalka bacdi midowgii maxaakiimta iyo shabaab iyo al-qaacida Cabdullaahi Yuusuf iyo raggii la socday iyo ciidamadii reer Puntland u badnaa laakiin ciidan markaa dowladeed oo TFG ah waxay yimaadeen waxay qabteen villa Soomaaliya oo gabi ahaan burbursan halkaan waxaa joogay Malaysia Xuseen Caydi uu lahaa oo loo geli waayay markii ciidankii Cabdullaahi soo galay Malaysiadii Xuseen Caydi ciidankii meeshii lagama cayrina ciidankii Cabdullaahi baa lagu daray shaqaalihii xataa hadday jireen gabdho xaaqa meelaha qaarkood iyagana shaqaalihii dowladda laga dhigay madaxtooyada laakiin madaxtooyadu waa burbursan tahay meel yar oo residence ama madaxweynaha uu seexdo iyo laba qol oo yaryar oo kasoo horjeeda ayaa gebigeedaba functional ahaa oo shaqaynayay daartii weynayd oo boqolaalka xafiis ahayd iyo agagaarkeeda ciidanka Etoobiyaanka oo gadaal ka yimi ayaa degay anoo ka imi marka ay soo dhamaatay mashruucii GNA Joint Needs Assessment ee bangiga adduunka iyo qaramada midoobay si daraasad loogu sameeyo burburkii Soomaaliya markaa adduunka tabarrac looga raadiyo barnaamijkaas sidaad soontiin anigu waxaan hogaaminayay qaybtii Puntland la oran jiray GNA Technical Committee mid Somaliland mid Puntland iyo mid South Central Somalia ama Soomaalida koonfureed daraasadii aan soo sameynay qiimeynta markii la isku soo xooriyo $2 bilyan oo dollar bay noqotay markaan anigu hogaaminayay qaybtii Puntland waxaanu tagnay Alula Xaafuun isku shuban Laas Qoray Garacad iyo dhulka Taleex iyo Galdagob iyo Gaalkacyo iyo halkaas oo dhan waa soo maray teamkii assessment-ga يعني local assessment waxa weeye technical committee oo anigu madax u ahay iyo beesha caalamka oo khubara soo dirayso oo halkaan laga qabanayo waxa la yiraahdo workshops ama seminaaro ku saabsan dadka la weydiinayo waxay u baahan yihiin iyo waxa magaciisa meel aanan ka qaban workshop ma jiro boosaaso waxa ugu badnaatay markii project-ga ay ga dhamaatay 2006 oo Cabdullaahiyana ay tageen Muqdisho ama dowladda TFG-du ay Muqdisho u guuday ayaan anigu Muqdisho tagay anigoo aan dowladda u shaqeyn madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo malaha ay ka maqnaayeen dadkii shaqaalaha ahaa howlwadanadii madaxtooyada ayaa iga codsaday inaan madaxtooyada qabto muddo 10 bari ah inta shaqaalihii ay u imaanayaan طبعا shaqaalahaas waxaa ka mid ahaa Durqun Xuseen Saylaan wasiir Weyrax 10 bari markaan meeshii imi waxaan arkay meeshii fax shaqaynaya mali
oo kombuyuutarra yaalla waa kuwii dinosaurka ahaa malaha lagu bilaabay kombuyuutarrada oo aan shaqaynayn laguna shaqayn karin email ma leh yacni waxaan ka yaabay ninkaa dhan oo madaxweynaha oo shaqaalaha uu u joogay inkastoo markaa ay kala maqnaayeen sababta capacity-ga xafiiska uu saa u noqday dhowr waxyaalood baan sameeyey 10 beri gudahooda horta ciidamadii Etoobiyaanka oo madaxtooyada ku jiray waa ka saaray oo waxaan idhi dibadda aad aadaysaa xafiisyada tan waa la dayactiraya xafiiskii madaxweynaha communicationkiisina waa dhisay waxaa igala shaqeeyey nin la yidhaha Axmed Gitaar oo joogay markaa agaasimo guud ka ahaa wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta waxaa meesha jooga oo injineer ka ah nin Xuseen Caydiid meesha ku ogaayo aan waxba haysan oo hadba xoogaagii loo dhiibo daar ku ranjiya ama maaragtay horta kaasaan ka bilaabay oo u yaro ruuxani lacag ma haysata aad wax ku dayactiri karin maya buu yiri adigu ma hadba meel xoogaa dollar markii lagu dhibo meel baris ha haddaba saa kuma shaqay ka dhide dadka dhisa guryaha inta sameeyaan oo lacagtooda geliyaan bay furaha dadka u keenaan marka adigu capacity-gii ma lihi nin baan kugu darayaa maalqabeene ma ogosha buu yiri Siciid Daahir warsangeli ajeegaa ku ron yahay ogaaslabe oo haddeer xildhibaana dowladda Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanka ayaan u yeeray war waxaan hawsha ma qaban karaa buu yiri fan baa loo baahay Soomaaliya waxaa jiray lacag baan ogaaday taala oo Chinese ku bixiyeen oo Cali Maxamed Geedi hayaan intay isticmaaleen maahan warqad baan qoray Abdullaah ka saxay waxaan idhi madaxtooyada waa in la dayactiraa xafiiska weyn oo aad aragteen oo dhowrka boqol oo xafiis ku yaalla annagaa dayactiray xafiiskii madaxweynaha waxaanu keennay horta satellite VSAT baa la yidhaahdaa Nairobi saldhigiisu yahay company oo reer galbeed VSAT baan ku xiray ka madax bannaan Hormuud waxaan ogaaday UNDP-du inay bixiso kombuyuutarro badan oo xafiiska prime ministerka geysay Khalid in la yiraahdo oo uga hooseeya xafiiska Geedi ayaan la hadlay waxaan oraa 10 kombuyuutar oo casri ah geedina waa u sheegay kuwaasna waa la keenay satellite-ki waa la kiciyey email-kii waa lagu xiray xafiiskii waxaa lagu bilaabay dayactir intaa markay dhacday anigu dee 10 beri bay waqtigay waa dhammaaday uma shaqaynayn dowladda TFG dhismihii oo socda ayaan anigu ka tegey macnaha waxaan ka waday dowladdii Cabdulaahi Yuusuf ayaa dayactirnay Villa Soomaaliya burburkii dagaalkii sokeeye burburkii ka dhacay dagaalkii sokeeye ka bacdi hal qaada iyadoo aysan ka maqnayn oo wax walba shaqaynayaan oo qalabaysan ayaa waxa la wareegay Sheekh Shariif inta yaabay uu yiri war haddaan saa ogaan lahaa Cabdulaahi baa kama hor imaadeen horta Villa Soomaaliya saasay ku dhisantay intii ka dambeysay madaxdii ka dambeysay Sheekh Shariif farshaxan maahane waxay ku darsadeen male saas ayay u dhisantay Villa Soomaaliya inaan la socotaan xagga taariikhda weey aad iyo aad baa u mahadsantii waan salaam